dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday geerida afhayeenkii xarakada al-shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. qoraal lagu daabacay warbaahinta idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in Cali Dheere axadii la soo dhaafay 10 saac iyo bargalabnimo uu ku geeriyooday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. afhayeen Cali Dheere ayaa maalmihii la soo dhaafay isbitaal la jiifay dhaawac culus oo ka soo gaaray dagaal ciidanka xoogga dalka iyo shacabka xoreynta Hiiraan ay al-shabaab kula galeen deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan khamiistii la soo dhaafay oo taariikhdu ay ku beegneed 29 Sebtembar 2022 sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. sidoo kale qoraalka waxaa lagu xusay in horjooga lagu magacaabo Qorgaab lagu dilay dagaalkaasi. inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin geerida afhayeenkii xarakada al-shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere, haddana qoraalkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaliyay hadalhayn badan oo ku aadan geeridan iyo xaqiijinteeda. dadka falanqeeya arrimaha amniga dalka ayaa tilmaamay in haddii ay dhab tahay geerida afhayeenka al-shabaab qayb ay ka noqonayso in uu sii xoogaysto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin badan oo ka mid ah gobolada dalka. weli ma jirto cid ka madax bannaan warbaahinta dowladda oo si rasmi ah u sheegtay jiritaanka geerida afhayeenkii xarakada al-shabaab Cali Dheere oo dowladdu ay sheegtay in uu u geeriyooday dhaawac soo gaaray. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ee ku saabsan geerida afhayeenkii xarakada al-shabaab oo ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan. waxaa sii xoogaysanaya dagaalka ka socda qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka sida Hiiraan iyo Galguduud ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya, shacabka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab. tan iyo markii uu dagaalkan bilowday ayaa waxaa jiray ciidamo fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u daabuleysay gobolada uu ka socdo dagaalka, waxaana aad u sii kululaanaya xilligan dagaalka u dhaxeeya al-shabaab, dadka deegaanka iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wararka iminka la helayo ee ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in ciidamadu xilligan ay wadaan howlgallo xoogan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ka socdeen maalmihii la soo dhaafay dagaallo xoogan oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda.